galabta waxaa ciyaar xiiso badan ku dhex martay garoonka kubadda cagta ee Xabado Stadium Football naadi ka socday gobolka Mudug oo lagu magacaabo FS Qamandi iyo naadiga kubadda cagta ee gobolka Cayn ee Darwiish waxaana ciyaartan maanta si rasmi u furay duqa degmada Buuhoodle Maxamed Xasan Faarax oo isagu halkaas ka soo jeediyay kelmad ku aadan furitaanka ciyaarta waxaana kooxda halkaas ka hadlay gudoomiyaha isboortiga gobolka Cayn Mustafa Maxamed Coon oo isaguna halkaas ku soo dhaweeyay kelmad mahadnaqa kooxda ka socotay gobolka Mudug oo maalinta shalay soo gaaray magaalada Buuhoodle ee xaruntani gobolka Cayn waana ciyaar saxibtimo waxaana ciyaaraya gobolka Gaalkacyo iyo gobolka Mudug iyo gobolka Cayn ciyaar saxibtimo sida awgeed oo ay isugu yimaadeen labada gobol ayaa galabta ka dhacay magaca gobolka sida ka dhacaysa ciyaartii male ciyaartaas oo ah ay ku ciyaarayaan labada naadi ka socda gobolka Mudug la yiraahdo Qamandi iyo naadi la yiraahdo Darwiish waana markii ugu horeysay ee ay gobol naadi ka socda gobolka Mudug halkan lagu yimaado ciyaartaas oo ah mid taariikhi ah waa tii ugu horeysay waa salaamantiin intaasi kadib halka waxa ka hadlay laba mas'uul oo kala socda labada kooxood ee FS Qamandi iyo kooxda Darwiish Buuhoodle oo labadoodu halkaas ka soo jeeday mahad celin balaaran iyo inay ciyaarwana ku soo bandhigi doonaan garoonka weyn ee kubadda cagta ee Xabado Stadium Football waxaana ka hormaray macalinka ama tababaraha kooxda FS Qamandi ee magaalada Gaalkacyo kooxda FS Qamandi asiyaabi inta aad ayaan u faraxsanahay dareenkan aad si ay noo soo dhaweeyeen maamulka Buuhoodle galabta waxaan ka dheelnaa xaggan ciyaar ma taqaana ciyaar wanaag aad u soo bandhiganaa ciyaar aad galabta waxaa filayaa guul dadka ku daawanaya iyo maxaad u sheegaysaa ayaga dadka daawanaya waxa uu sheegay runtii aad ayaan u mahadcelinaynaa ee sheegsay noo soo dhaweeyeen runtii anagana waxaan chance u gaadnaa mar inuu yimaado saas kale islixaad aan u soo dhaweyn doonaa magaalada Gaalkacyo galaadeeda aad aan u faraxsan rahmatullahi wa barakaatuh ana ku hadlaya magaca naadiga Darwiish kabtanka ahna naadiga gobolka waxaan ku soo dhaweynayaa naadiga Gaalkacyo nooga yimid si hambalyo leh inaan ula ciyaarno biya akhlaaq ku jirto kubad xamaasad leh in gudahayaga aan ku ciyaarno laakiin garoon kala bixin waan ku soo dhaweynayaa maxaad noo sagalabta hadii kooxdaas waxaan mudanayaa ciyaar iyadoo aan home stadium Xabado anagoo joogno aan ku soo dhaweynay Gaalkacyo in anagu aan kubadda sida tahay aan ula ciyaarno badasho fursansa insha Allah billahi kariim wa rajeen intaasi kadib waxaa si rasmi u furmay ciyaarta saaxiibtinimo maanta dhex martay labada naadi kala socday gobolada Mudug iyo Cayn waxaana halkaasi si rasmi ah bulshada ugu dhawaaqay inay ciyaartu furan tahay waxaana labada ciyaarto ay soo bandhigeen ama labada kooxood ciyaar wanaag aad u qurux badan oo soo jiitay taageerayaashooda maanta buux dhaafay garoonka weyn ee kubadda cagta ee Xabado Stadium Football ugu horeynba waxaa gool ka hormaray wareegii hore kooxda Darwiish ee gobolka Cayn oo iyagu gool qurux badan ka dhaliyay kooxda FS Qamandi ee magaalada Gaalkacyo wareegii labada ciyaarta ayaa dib la isku soo laabtay waxaana gool kale markii la dhaliyay kooxda Darwiish ee magaalada Buuhoodle gabagabadii ciyaarta ayaa kooxda FS Qamandi ee magaalada Gaalkacyo waxay iska jaftay board iyagoo taageerayaashoodina ay wajiga ay hoos rogteen iyagoo doonaya inay taageerayaashooda ay boardka ka jafaan waxayna halkaas ku soo bandhigeen gool aad u qurux badan oo runtii si weyn loogu shacabiyay kooxda FS Qamandi ee magaalada ciyaartan oo ahayd mid aad u xiiso badan isla markaana markii ugu horeysay dhex martay labadan naadi ka kala socda gobolada Mudug iyo Cayn ayaa waxay ku soo dhamaatay jawi aad u wanaagsan waxaana buux dhaafiyay garoonka soo buux dhaafiyay galabta taageerayaasha labada dhinac ee ka kala socday Mudug iyo Cayn waxaana ciyaartu ay guusha ku raacday kooxda Darwiish ee ka socotay magaalada Buuhoodle oo laba kaga adkaatay kooxda FS Qamandi ee magaalada Gaalkacyo ka socotay caro dhagtar telefishinka caalamiga ee